wasiirka horumarinta waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa saaka soo kormeeray xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Caynaashe iyo madaxda kale ee wasaaraddaasi ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka iyagoo halkaasi ku siiyay warbixin ku saabsan wasaaradda waxbarashada. waxa maanta safar noogu yimi kormeera wasiirkii wasaaradda waxbarashada si uu xogagaal ugu noqdo uu indhaindheeyo xaaladda dhabta ah iyo howlaha waxbarashada ee gobolka Togdheer. waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. waxaan kugu soo dhaweynayaa xafiiskii gobolka uga wakiilka ah waxbarashada gobolka Togdheer. waxbarashadii gobolka Togdheer ayaan kugu soo dhaweynayaa. waxaan ku leeyahay wasiir ku soo dhawow xafiiska guud ahaanna waxbarashada gobolku si fiican bay u socotaa. waxaan ku jiraa bilowgii sanad dugsiyeedkii cusbaa 2019-2020 si wanaagsan oo habsami ah ayay hawshii waxbarashaduna u bilaabantay inaanu hirgelino, inaanu xaqiijino, inaanu ka dhabayno qorshihii wasaaradda waxbarashada ee ahaa in kor loo qaado tayada waxbarashada guud ahaan oo si aan ula jaan qaadno dadaalka guud ee wasaaradda waxbarashadu iyo siyaasadda aad ku hagaysa ee isha ku haysa in kor loo qaado waxbarashada guud ahaan gaar ahaan waxbarashada aasaasiga ee dugsiyada hoose dhexe. Cismaan Jaamac Aadan wasiirka waxbarashada iyo sayniska ayaa amaanay doorka waxqabad ee isuduhu ka geystay wasaaradda muddadii koobneed ee uu joogay, wuxuuna sheegay inay ka wasaarad ahaan ay fulinayaan siyaasadda xukuumadda taasi oo daryeelaysa danyarta si ay bulshadu isula jaan qaado. joogna gobolka Togdheer xafiiska waxbarashada guddoonka waxbarashada ee magaalada Burco indhayn iyaan imika weymid inaan indheeyo xafiiska waan aad iyo aad baan ula dhacay laba mid ahaa gobolada kale aad iyo aad baan idin amaanayaa. ilaa intaan wasaaradda imid oo ahayd imika 9 bilood laga joogo waan maqlayay intii Maxamuud u qabtay hawshan u qabtay wuxuu geliyay iyo tacabku geliyay iyo sidoo wuxuu wado ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa in waxbarashadiina ay ka muuqato oo ardayda sida ay wax u bartaan in ay ka muuqato oo lagu soo hirto iskuulada. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqaalaha iyo gudoomiyuhuna aad iyo aad bay mahadsan yihiin hawsha faraha badan ee ay geliyeen. halkan waxa ka muuqata iskuuladana taa iyo mid ka daran inay gelinayaan. waa ogtihiin wasaaraddeena waxaa layna siiyaa dawladdaanu ka helaatay oo weliba laynoo dadaalo waa 8% in aynu dadaalo aad iyo aad bay u habboon tahay. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.